بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن عن أبو بكر ولكن شخنوف يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. أنت كذب إلهي إلى هذا ما أنت أقرأ كلام مثل ما قلت أنا كلام أي سوي معطي وياها كسر شيء قبل كقولي مقالة يتفوري وحنا ربنا إن شكل ولا تشري عاية يعني أنا كذا تشرنا أو يعني غربة وحنا جري بريها عند مرة جاليدو لكن أنا قاعد قولي اللي معي يعني بدون قلت كذا ست خضر ولكن صور أفريقيا يجونا أي سامية وأن محمودني إننا حالكم يتبوري إن كستو كمل مع جاليد سومالي دا إثيوبيا يتبوري يعني مركا waxaa soo baxday inuu qof walba uu gobolkiisa uu ka imaado ugu tashado isaga ugu xog ogaansan gobolkiisa ruux walba markaas annagoo middaa ka duulayna ayaa waxaan sameynay kulankan ka horreeyay baa jiray midkaa laakiin inaan jaaliyad iyo waxba lagu dhisa ma ahayn laakiin aan ku dareennay inaan kala daansanaanta dadka oo niman culimo oo khayr daahasi maalmo iyo nooga imaaday noor Denmark jaaliyaddan iyo taboori aad ay ugu ammaaneen sidii aan u garab istaagnay ama wax uga geysanay معه لو لسه هي كذي كوبات بكسر كوبات إلا إلا بيتنا مركزية ده ما دام أمد أن هاي هالمركب ولا تمد إن معناها أولكي يضطك عن كي معني لو استاجو وحلا قطه إن جاليدها تبدأ ونسكح عودتك نسكح نادان يرجع يواوين بقى مين تقول أنت مركز إنه وده كده لنا يا بحال صوبا لقي إن أنسى ما يسنق شاليد وكذي ونقول دولة هي واحد سياسة هي واحد سياسة أي شغل كله معه هاي لكن هاي تركي وده كان من سفلة ده مع أحمد أو برشة أو وحي عن جين كمان حاجة وحياة بدنا وحاجة وده جين وكذا مرسين يعني تنسيق على مسكح دي لقيه حاجة لقيه حوجي لقيه سياسة وكذا مركب مدرسة أنا وكذا بين أيو كنا كان وها وأنا كنا كيكوات وأنا ولين هيا بس ده مقلتها أنا بدأت موضة لأن ما أنت وأنا يوم قايمين لكن وشدوا وحي هذه ما أنت الوصل نيا حبنا نقول دارته حبناها سواء نقول وجان كي بيتفوري وثلاثة دين نعطي أنا كل حركة معلومة يتولون كده بشكل ياجي و يران يريه أيوة لكن على هاي محرا جالية أما واحد لكن تذكر السحر سويد أنا ده هي مهمة تهاي مركا وإمتاز كل سؤال طبعا ونسوق ونويدين كعبد الله يرهله waxaan hadalka siin doonaa saxaabada dhan iyadoo aan waqti badan aan isbaarno annaga magacyadeena ku bilaabayna intaan meesha ku fadhido jaaliyadda Soomaaliya Itoobiya iyo Taboori ay afhayeenkooda ahay magaalada godayna reegodayna waan hayaa goday waxay samaysanayaan oo ay shirayaan qasab iyadana waa ku jira Soomaaliya marka Cabdisaaq Gamaal Diid Maxamuud baa la dhahaa midagtaan ka wadi doonaa Abdullaahi yiraahdo Maxamed Nuur Meegaag oo kasoo jeeda gobolka Gaday Sheekh Nuur waxaa la dhahaa Nuur Cabdi Colaad waxaan kasoo jeedaa gobolka Gaday siba beer caano West Gaday hadalka intuu si dhaafin barashada ay dambaysa waxaan rabaa kelimo yar oo ku baraarujinayo oo arkay munaasab inay tahay dadka meesha soo imaaday waajibna ay nagu tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka rabo dadka muslimiinta markay meel isugu imaadaan kelimadaas ah in la isku muxaadareeyo at least in la isxasuusiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa أقل فرض كقدر عيسى ولا كعبسة كلين الاستوى إلهي سبحانه وتعالى أيضا فرض بدن يحدث فرض بدن بكوب برارجنا هي أمد مركز سنة وكلام من أصل السوء مالان إن اسكو برارجان إلى قول كيسا اسكو برارجان نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كيسا وحوار رئيسا سوق هذا إن عيدو رئيسي سورة النساء كجرتي ومحنا يدوها ضد مال السوق ماذا خير ماله إلا صدح ميلود موين
laa khayra fi kathiirin min najwaahum wax khayr ah oo shirarkooda ay leedahay ma jiro ilaa 3 qodob sheekha in lagu hayo najwa shirarka oo kale khayrka waxaa soo gelaya ilaa man amara bimacruufin wanaag in laisfarahayo wanaagga waxaa ka mid ah in taqwada ilahi baa subxaana watacaala soo gelaysa waxaa soo gelaya hawshan aan rabno inaan qabano dadki iyo dalki in loo qabto ama nafteennaba aan u qabano ah waxaa soo gelaysaa ilaa man amara bimacruufin aw sadaqa sadaqadiina way soo gelaysaa shirkeena sana ilahi subxaana watacaala ka rajaynayno oo ah in waxaan inaga shirkeenan aan hore uga dhaqaaqayno leeyahay wax in la aruuriyo ama nafteena aan wax u tarno ama dad u dhibaataysan inaan wax u tarno waxaa ku jira oo kale ilahi subxaana watacaala uu ku yidhi ayada dhexdeeda aw islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda in la hagaajinayo tii baanu ku jirnaa dadkeena inaan hagaajino dadka walaalada meesha jooga inay iska warhayaan dalkii dadkii laga imaadayna in laga warhayo xabiibkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi dad meel isugu imaaday ma jiraan ilaahi subxaana watacaala aan isku xasuusinin nabigana aan ku salayin salawaatullahi wasalaamu calayhi ilaa meesha ay ka tageen waxay ku noqonaysaa shalleeto ama waxay noqonayaan sidii dameer baktiya oo kale taa inagoo ka badbaadayna inayna noqonin ilaahi subxaana watacaala isinaga dhigin baanu arkay kelimada yarka ee taqwada ah inaan isbaraarujino oo cali abi taalib uu yidhi taqwada la sheegi macnaheedu 4 shay bay soo gelhayaan kow alcamalu bitanziil qur-aanka la soo dejiyey ilaahi subxaana watacaala uu ina siiyey oon ku camal fallo walqanaacatu bilqaliil waxa yarka ilaahi subxaana watacaala uu ku siiyey ood ku qanacdo والاستعداد ليوم الرحيل مالك قيامه وديار قرودو وديار قرودو أو أذن هالمامن كلمة دا بان كسر قابلنا إن شاء الله وأنا قصعنا هي صلوات الله والسلام على النبي نستاس نقدر دارمي أنا كل قنو إله سبحانه وتعالى عبس ديسا أنا نوقف على إله سبحانه وتعالى كو تقوى ديسا مرول بسكوب الهلوج إله سبحانه وتعالى أنا قال له وحسينا يا نكن نقرف عليها فليتفضل مشكورا. السلام عليكم أنا محمد بشير والعلاج كسر السيدة كم في القدي. أنا حنا سمعنا عربلات وكسر كلهم قبل كقدي. مرحبا محمد اسماعيل أنا كسر قبل حلا قدي. قدي. أيوة يوسف كمديني محمود فرح أنا كسر قبل كقدي. بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا إلى بعد العبد الصلاة وكسوتش إذا قبل كجودي. هذا مثلاً أنت عندك كجودنا أنا ده أصلا على عنا عرضنا هو رئيسنا بصاحب كان أو كم على الله عيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أدب ما سنتين ماشي سكوا معك مركا أنت بحاول وحن عندي سويان عندي سهل نسيت سوى هذا لقرب شيء المهير عليه. midda labaad yani waxaan ururkan aan samaynayno waa mid siyaasadii waxba ka madax banaan oo ah sidii dadka dhibaataysan ee u dhashay magaalada Goday ama gobolka Goday wax loogu qaban lahaa aan ku soo jiidanana wax badan iyo indho badan iyo dad badan marka taa horta sidaa hore loo socdo nin walba wuxuu doonaha aaminsanaado wuxuu doonana ha wato laakiin waxaa jirta midii ahayd Goday ninku hadduu u dhasho ama Goday uu ka soo jeedo waa inuu Goday waxay tahay ka run sheego maantana kulley sidaan maan ku wadin inay dad badan imaadaan baan isku wadnay oo hawshii maanta ay noo wada dhamaato laakiin waxaanu celinayna ma laha hawsheena waan dhamaysanaynaa guddiga waan samaysanaynaa insha allahna inteenaan baan maaragtay hawshii dhamaystirayna hadhow ciddii noo imaata ee hawshan danaynaysa ee wax baan wadaa dhahdana markaasaan ka dhagaysanaynaa marka insha allah inayna waxba dubir u dhigin oona waxu waxaynan yaan rajeynayaa oo aan كعبتنا إن شاء الله. بسم الله مر لبعض بنك صون قنايا حنا أركها ثلاثا ولا لذن هالونادي فيه ونقرأ أحسننا يمتي هذا قدر أمور نقطة تاريخ ذا 2009 كي 2010 كي فكرة وان سوبر سبوسكري وان كدم بدفع بدن ولا لذن ماشي فريق ومقام وان كاتسي وحد عليه إن أنا لقاه قادم لكن آد وحنوم علنا يا رجل هذا كسر شقي يسون لي أنا أركو رنتي بدان وناكسن شركة إنه مثل دونه وحنو أركا هذا كان ولا لذين وانقوا فقصنا وشر وناكسن شروينا صوص عضنا وكهر بعد ما منكم الجارة إلا دورت أنا جاي لقوم صح تاسا أنا سويت شيء لها وأنا كبحث بسم الله الرحمن الرحيم waxaan sameeynaa marka qolada qadar waxay sameysteen waxay la baxeen Goday sameeyeen magaca Goday development community ay la baxeen
magacaana samaystayna waa inaan meel walbo laga South Africa oo kale tii laga sameeyay laga sameeyay deedna isku xirto magaca marka sidoo aragtaan qofka oo taageena cidii ku qanacsan بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantiin dadkan kulankan sarafta la isku imaado haddaan wax yar shirkan ka taataabto wuxuu hordhac u yahay shirar dambe oo dhici doona oo kan ka weynaan doona oo ku saabsan gobolkan aan hadda aan deganahay Tabori dadkan kasoo jeeda gobolkan gudi degan gobolkan Tabori aad u badan yahay rag iyo dumar marka la isku daro marka waxaan rabnaa inaan istaagno oon dhaxal ku xidhanno sidii aan gobolkeenu gudi warbixintiisa gobolka gudi dhinac walba uu ka hooseeya gobollada kale marka loo eego deegaanadeena qabridaahare uu ka hooseeya dhagax buur uu ka hooseeya meel walba ka hooseeya xataa gobolka degmada gudi gobol baa lagu magacaabaa wuxuu ka kooban yahay 7 degmo 8 degmo ayuu ka kooban yahay 8 degmo marka la isbarbar dhigo degmada gudi way ka hooseysaa feerfeer iyo gobolka gudi laga xukumo feerfeer baa fiican xagga waxbarashada marka laga eego ardada feerfeer ka soo baxda dugsi sare jaamacadaha ee wada galaan gudina ma gasho waxaana waa dhaliisha dadka u dhashay dadka waxbarashada feerfeerka wax ku barta ardada wax ku barata macallimiinta waxaa loo kala Soomaaliya waxaana caawiya macallimiinta dadka dibadaha u jira ee lacagta fangaraya oo siiya waxay wasaaradda waxbarasho oo heerka la samay waxaana caawiya dadkooda la dhashay ee walaaladooda dibadaha u jira caawiya waana isku xidh ay sameeyeen aad bayna ugu mahadsanyihiin dadka walaalada inay caawiyaan marka innagoo qorshayaashaas oo kale ka duulayna إله هل طلع عن قانون أو حقبت نمن ما لو تعلماء إنه هو هذا أصل معلمه خير إلى يسير وحوينه في عنه يدي له بودي ما قطع جري أدب نقولش تاني إنه كي كدور إنه ما كسر دخاتين إنه على إنه ما كان إنه وده نقرأت وحنرنا إنه نقوى فشل من هذا التعرض الصعوبة أو إن gudi laga dhigo laga dhiso dugsi hoose ilaa jaamacad diini ah oo socota oo bilow hadda kaanuna ku fashilman marna inaan shirad iyo qabanno iyo adeegyo iyo taageeraan waliba had iyo jeer shir joogta aan yeelno wax arinta laga rabo inay filan waa dhalinyarada hadda soo kacaysa waxaad ku xisaabtantaa waddankiinu inuu yahay waddan baaba ah oo waxba hadda la abuureen waxbarasho male biyo male jidad male telefoon male leyd male wax gala male xoolaha ay dhaqdaan iyagu waa isku mid dadka saas aa rabaa in dunida la gaarsiiyo oo heerkaa ditaalihin dadka la gaarsiiyo wax lagu daro waxa gaarsiin karana waa innaga waxaan ku darana halka roon uruna meel uruna ku gaarsiin karaa bis oo niyad inaga shirka mabda loo noqdo dhalinyaradiina horta waa shirka waa inta mabda kala male wax siyaasadda ma noqon male oona la fulo shirku leen dowladda taageer u shirku leen waxum uu shirku leen midna male shirku waa soos xagga dhismaha haddaan usoo noqo dadka deegaanka gobolka guud urusha aad buu kala maqan yahay maanta dadee baan meel ku fadhinaa waxaa ila quman inta dadku meel gaar inaan doorano aan ra'yahanteeda waxaa weeye horta waxaan ninka uu niyad ka ahayn dee kolley maaragtay uma maranay hadda intaan anagu niyad ka ahayn inuusan jiro dee ragga uu niyadda ka ahayn anu telefoon baan ku wada hadalo way iga baxeen looma fahmin marka horetana go-aankaygu wuxuu ahaa hal ama 2 ruuxna ha imaatay inaan hawsha ayna ka seexanin mana ahan dadka magaalada Tabori kaliya dadka loo baahan yahay tuulooyinka meel walba wax walba loo baahan yahay dhammaanteen waajib baa naga saaran inaan u guntano arrintan waa koob maxaa maanta nuur waqtigu soo dhumiyay oo asagoo shaqo lahaa shaqadiisa soo beeldaray
qofka adoo kale ahna maalinka aad shaqo lahayn baan la aadanayna bishii hal mar oo kale inaan kulano laakiin inta ka horeysa nin walbaba inuu qof keeno guddigii oo dhisan inaan nin walba qof keeno yaa loo baahan yahay oo qofka uu soo keeno maalin walba aan sii diiwaan gelino koontadii la furo wixii waxaa loo baahan yahay marka guddi la dhisayo ama kumeel gaar ahaada ama guddi ahaada horta qofku waa inuu qof sharci leeyahay ko hawsha aniga u baahnay maaragtay in adiga kala barqasaan hadda maxaa ilaha maanta haddaan kala tagno maalinka dambe sidaan iskugu keenaaba adkaanaysaa soo ma fahmi waxa aan rabaa waxay tahay horta hadda inuu cabdisaaq hawsha galo oo uu dhaqaaqo muxuu ku dhaqaaqi waa in horta dadkii la galo lagu soo saari lahaa nambarada koontadii la iisoo furo qof walba aan maaragtay sidaa hawsha ku hirgasho oo socoto oo istaagin soo ma fahmi marka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexda ruux ee u horeysa ururku waa inay sharci leeyihiin أنا أمر بالجرب كينا تاجر وكل ما نشوفه ما جرب كينا تاجرنا صدق روح أوفر سواك ووجه أمكم بالجارة أمكم بالجارة هان شو الذي يتبور كلنا مفيرين هان أشتغل على الشركة إنه مثلا استوكهولم إلا مالمو تذكر أبتس المجال هذا جذي تذكر أرونا نسخ حال نسخ أروريو نسخ حلو فخشوا كلا ضد بينك شو شو لو يمكن كلا وحاجة شو كلا مالمو هاي اللي هم حطات الستان على صور حريرية haddii loo baado xitaa guddoomiye xitaa iyagu noqon karaa uu ku wareejin karnaa si hal jaaliyad loo helo shukr catiisaan ku kala tagnay cabdiish maalinkii marka waxaan kor oga sii soconaynaa oo suuq baan wada hadalay habeen hore way shireen wada rag inaga inkaaran bay ahaayeen waagii lacagtan aruurin anaga lacag maan aruurin bay dhaheen kileha rag baan dirnay abshanaafta bay direen khayradda macadka intuu dhan yahay lacagta ku baxaysa noo soo qaad bay dhaheen anaga lacagta waxa dhan qardimayna kunurwen ha dee meesha badan baa jooga rag dhisan baa jooga ogta adaab ka shaqeynaya meesha gudoomiye waxay malayga dooranayna gudoomiyahan ku horeynayna marka waa sheekh nuur marka yaa gacan u taagay sheekh nuur aniga gacanta u taagay sheekh nuur inuu gudoomiye oo noqdo waa la wada taagay inta meesha aan ku أنا waxaan leeyahay ninkan boos la siiyay labada boos midkood بيتسونو ama ay tirsan absi meel gaar ah aniga ku saayay إن شاء الله واي yaa gacanta u taagay xogahay inuu aniga idinahay taaliyada cabdisaaq gacanta u taagay wax yusuf شيخا يا نقلنا هذا يعني مصطفى غيري كان مغربي صوته ولا يتفضل برضه شفت واحد يبقى كان طعي لكن انت والله لك ورشين دون هذا الا عشان نروح عم بعنا الا عشان دون ما لنا قالنا هنا وركد ما تواصلت علينا قبيو انه ها هيا وكانكم بالجار انت الله راس روح نحوش نصيب ولا هذا يا هنا ساعدنا انه ساعتها ما هي ساعات شيخ وسكيدي واحد نوصل لورد يقابكي أو الرعب مغلي ما هذا ما يسمى بما وعادي ما يورد حتى ما يكسر هنا دي وين عشان تاخذ كسب شغلنا هي وقعد عصا مشاخ سولو شيخ مغربي عبد الرحمن صدري عبد الرحمن خير waxaan ugu dhaafay shirkan oo furmay wax yar ka hor haddana way gabagabo shirkan waxaa laga hadlaya sidii magaalada gudaha wax loogu qaban lahaa isbarasha horumarta ninka cabdiraxmaan baa la dhahaa ninkan waxaa la dhahaa yuusuf baa la dhahaa yuusuf gamaadiid cabdirasaaq walaalkii weeye ninkan nuux baa la dhahaa ninkan waa jamcaale carab colaad sulwal colaad anigana nuur cabdi colaad ninkana waa meegaag bucul weeye marka waxaa laga hadlay sidii gobolkii wax loogu qaban lahaa dadka u dhashay ee kala baahsan ee waddankan Sweden joogana isugu soo xiri lahaa marka intaasaa ku dhaaftay insha Allah aqligaaga iyo fikradaadana waa loo baahan yahay waxay dhahan aqli rageed waa caanadeed laxda markii la gujiyo qurban yar baa kusoo istaagta marka insha Allah waa maskaxdaada wixii fikrad ah tafadal waa soo dhow maajirka waa inoo gabagabaysan warbixintan waa dhisiisan marka wallahi haddaan ku bilaabo waa fikrad fiican aadna u wanaagsan qofku inuu gobolkiisa iyo maaragtay dadkiisa wax u qabto waa arrin runtii aad iyo aad u fiican loona baahan yahay kolley waxyaalaha muhiimkaana waxaan weeye waxyaalaha caamka ah ee dadku ay u baahan yihiin sida ama jidada ha noqdaan hadii wax la isku qori karo maaragtay ha ahaado muxuu ahaayey dhakhtar oo kale ha noqdo sida macadka hadda socdo oo kale ha noqdo anigu ay ka maqnaa waxyaalaha caamka wax loo baahan waa arrin aad iyo aad u fiican runtii oo loo baahan yahay dadku inay maaragtay gobolkooda iyo ay wax u qabtaan iyadoo markaa dee dadka maaragtay
soo kaca iyo dhalinyarada gobolka u dhashay maaragtay laga kabay weli si waxbarashada iyo waad la socotaan gobolkeena aad buu u liitaa qofka wax loogu qabto maaragtay waa aad iyo aad fikrad aad u fiican weeye soo dhaweynayo macadka kulli la sheegay maaragtay horeyna aad hawsha uga qayb gasheen si marba loogu gurman lahaa weliba Soomaali weyn oo dhan loo dhexgeli lahaa ee maaragtay wax loogu qaban lahaa kulli waa fikrad aad iyo aad u fiican oo Soomaalida lafteeda in maaragtay tala dhex galo oo loo ururiyo macadkaas oo rag loo sameeyo masaajidda laftooda laga xishoonin oo loo sheegto مثلا بس هذا masaajidkan weyn ee Galmudug oo kale waa arrin kulli aad iyo aad u fiican waan u arko haddaan gobolkeena dareehay gobolkaas waxa loo qabto dinaca sunba kulli mucaaradi kale baan ma qofte wax kulli qof aqli leh waxa uu ku taageero naf iyo maal mooyee wuxuu ku diidaa male oo maartay waa arrin aad iyo aad kulli aan ugu farxay walaalkan megaag baa soo wacay oo ii sheegay arrintaas oo igu yiri arrintaas ay jirta xalay soo wacay hadda waxaan u habsaamay meeshaan ku maqnaan meeshii magaaladii baan joogaa Hamdistaan ilaa inuu buuyo marka shanta haban u qaad saasan shanta isku soo beegay isna xalay afartu ii sheegay marka saasan maartay suu dhaafnay haddana dhib ma lehe waxaa joogay darajii oo dhan baa joogay marka runtii waa arrin aad iyo aad aan ugu farxay maartay una hambaliyeynayo aad iyo aad u wanaagsan maartay arrinta in halka laga sii dhaqaajiyo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ها اسكو gabagabeynaa insha Allah laba waxa ku dhaaftay waxaan dooranay in la sameeyo jaaliyad baan jaaliyadana waxa loo bixiyay Gaday Development Community qadarna waa laga sameeyay in adduunka meelo badan laga sameeyo sida South Africa iyo tan waan ku wadnaa insha Allah gudoomiyaha marka dad waxaan rabnaa inaan sameeyno maadaama ma wada sameynayna maamulkii ilaa 7 ama wuxuu ka koobnaan doonaa 5 ama 3 laakiin laba ruux maan doonaa maadaama dadku intiisa badan u imaanin Sheekh Nuur oo u dooranay gudoomiyaha anigana xog haye leega dhigay aad baan ma santiin waan iska soo gabagabeynaa yaa inoo xiraayo inoo soo gabagabeyn baad mise تفضل قال أنا كشركة إنه جوجوية هي إحنا رجينا إلينا كبر هي إن أن نقول كجانو آمين أرنيه إنه أن إلهي نوفر ذيه آمين تكلتوا حروا نمكن المعمل كان دورنا إن القرشيات أصار استان سيدي تذكر أكون لو سوينا قابك العيها الوجر لها قابك الشركة اللي تقدم بقى وكان كون لو قبل لها إن